السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلكين بدقيسيال كسر ودا قدبada ugu door koran ee bandhiga FM madasha xisbiyada qaran oo ku baaqay in la balaariyo shirka ka socda Muqdisho. mid ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed oo eedan u jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida in uu culaado ku horinayo deegaanka Raaso. si hayaa xilka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in aan la siyaasadeenin waxbarashada dalka. madaxweynaha Puntland oo la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kalena hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland oo ku kulmay Muqdisho kalena hadlay xaaladda kala guurka ee dalka. markale ismaqal wanaagsan dhageystayaal intii aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobada ugu door karoon warka bandhiga FM 97.5 haatanna ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen inta ka faahfaahsan waana subaxnimo sabdiya tirada taariikhdu ay ku beegan tahay 5 bisha September 2020 madasha xisbiyada qaran ayaa ku baaqay in la balaariyo shirka ka socda Muqdisho. madasha ayaa ka hadlay muhiimadda shirarkani ay u leeyihiin iyo waliba xaaladda kala guurka uu dalku marayo sidoo qodobaraadkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdicasiis Xasan Ibraahim. war-saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay in shirarka ka socda magaalada Muqdisho ee lagu arisanayo arrimaha doorashooyinka dalka in la balaariyo. waxayna madashu madaxweyne Farmaajo iyo waliba sidoo kale dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ku baaqday in iyagu aysan isku ekaanin balse ay ku soo biiriyaan dhinacyo kala duwan si xal looga gaaro khilaafka hareeyay hanaanka doorasho ee wadanka. sidoo kale madasha ayaa ku baaqday in dib u eegis loogu sameeyo qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 gaar ahaan qodobada dib u dhigaya doorashada inay waqtigeeda ku dhici weydo. madaxweyne Farmaajo ayaa waxay ku eedeeyeen inuu baal maray dhaqankii dawliga ahaa ee 30 cisho lagu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub taasina ay tahay inuu madaxweynaha wali si dhab ah uusan u wajihin xaaladda kala guurka ah ee dalka uu marayo. ugu dambeyn madasha xisbiyada qaran ayaa ku baaqday in gogosha loogu arisanayo arrimaha doorashooyinka lagu casuumo hoggaanka ururada bulshada rayidka xisbiyada siyaasadeed ee wadanka. waxayna madasha u mahadcelisay beesha caalamka dadaalada ay ku bixinayso qabsoomidda shirarka iyo waliba sidoo kale xalka gaarista aayaha Soomaaliya. mid ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed ayaa eedan u jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida in uu culaado ku horinayo deegaanka Raaso. nabadoon Bashir Ciidiid oo la hadlay bandhiga FM ayaa sheegay in ciidamada New Police ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo banaan baxayay arrintan ay tahay fal laga leeyahay dana siyaasadeed isagoo sheegay in arrintan laga cabsi qabo haddii ay sii socdaan in ay colaado arrintan ka dhashaan dhiig badan uu ku daato. meesha waxa jirta meel qolo ma taqaanaayay raasal la yiraahdo degan yihiin waa garta kila shanaad Soomaalida ka tirsan waa garta marka sidee ay wax uga dhaceen niman New Police la yiraahdo ayaa waxa jirta riyaal iyo haween mudaharaadaya oo caruur iyo gabdho yar yar oo ma taqaanaa Quraan iyo u badan ayaa xabada ku furay. waa garta marka maxaa khasaaro ka dhashay waxaa dhintay 4 qof waa dhimasho ilaa 25 qofna waa dhaawac. waaya marka maxaa keenay in ciidamada ay dadka shacabka xabadaha ku furaan iyo waxa keenay meel laba qolo oo wada degan oo ma taqaanaa meeshaas ayay laba qolo wada degan qolo waxa ma taqaanaa isku sufayeen ninkan miyaa ma taqaanaa in cagtar la yiraahdo killa madaxda ka ayay isku sufayeen. waa garta qolada kale ma taqaanaa waa reer raasal la yiraahdo waa niman beerta qolada khaataan shaqaal weeyaan. marka waxa u fahmay in arrintan ay ku lug leedahay dagaal beeleed weeyaan. waaya laakiin waxa la isweydiinayaa maxaa ciidamada New Police soo geliyay qolada sida ma taqaanaa ay degaan bay isugu dhaceen degaan bay isugu dhaceen. dawladda ayaa waxay kuwan dawladda sheegaya in cagtar uu diray odayaal isaga xaqiisa ka socda. labadii qolood markay meeshii tageen ayaa waxay yiraahdeen qolada reer Raaso dib ha u guureen 45 kilomitir dib ha u dhaceen. waa gartay marka qoladii kale ayay rabaan meesha inay soo dejiyaan. si hayaha xilka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in aan la siyaasadeenin waxbarashada dalka. si hayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa tilmaamay in uu ka xun yahay khilaafka dhanka waxbarashada ee ka jira
dalka isaga oo hoose ka xariiqay in ay door ku lahaayeen Puntland manhajka dalka waxaana uu rajiyay in sanada soo aadan ay kasoo qayb qaadan doonaan ardayda Puntland imtixaanaadka dhexe ee dowladda isaga oo sheegay in marnaba aysan shahaado siin doonin arday aan u fariisan imtixaanka dowladda dhexe ee Soomaaliya. Puntland aad loo siyaasadeeyay runtii aad iyo aad ayaan shakhsiyan aniga uga xumahay wasaaraduna runtii waxa ay ku faraxsan tahay ma aha laakiin haddana masalada taalo haddii dhinaca maamulka Puntland waxa ay rabaan la yeelo tafaaruq iyo wadanka intiisa kale inuu kala daato ay dhalaysaa sidaan annaga wasaarad ahaan aaminsanahay hadda waa shahaadada kaliya waxa muuqdo laakiin wax badan oo kale ayaa ku lamaansan waxa kamid ah manhajka annaga waxaan rabnaa Puntland inay manhajkaas qaadato maxaa yeelay waa manhaj qaran oo shaqo badan iyo howl badan ay gashay qaybna ay ka ahaayeen iyaga laftirkooda xindaabkii guud oo hore markii la sameynayay iyo muqarrarka markii la sameynayay qayb ay ka ahaayeen in maantay manhajkii haddana aysan qaadanin oo dhinacaas la siyaasadeeyo oo la yiraahdo Puntland wax gaar ah ayay yeelanaysaa waa wax laga fiican yahay runtii khalaadka noocaas markay dhacaan saameyn aad u ballaaran yeeshaan marka waxaan jeclaan lahaa mufakiriinta Soomaaliyeed iyo inta ummadda Soomaaliyeed wax garada arintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan qanciyaan muxuu ahaa Puntland maamulkeeda inay ummadda Soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan haddii iyagu ay aaminsan yihiin in wax ka duwan oo wanaaga iyagu gaar u leeyihiin ay jirto inay soo bandhigaan oo mataqaanaa wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee maamul goboleedka inta la fariisto ay yiraahdaan war wixiina markaan aragno waxaan oo ka faa'iido badan aan haynaaye hal kordhiyo hal lagu wanaajiyo dialogaas inuu tago ma aha laakiin waxaan qabo anaa og anaana aqaano ilaa haddana waxaa weeye mataqaanaa anaa iskoobayo waa fikir laga fiican yahay marka waxaan jecelahay inaan u abiil gareeyo ummadda Soomaaliyeed ee mufakiriinta ee waxgaradka inay muxuu ahaa markaan lagu kabnaado Puntland mataqaanaa mar raba in loo caqliyeeyo laakiin lala taliyo inaysan ummadda aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray waa run arrintan mudday taagneed waana soo noqnoqotay runtii waa nasiib darro aan dhihi karaa midda kaliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku soconno oo ah inaan arday aanan imtixaan ka qaadan shahaado iska siino taasna dhowr mar aan fasirnay aadaan u fasirnay inay xaqdarro ku tahay intii imtixaan ka gashay weli waxaad maqlaysaan warka bandhiga FM ee Muqdisho madaxweynaha Puntland ayaa la kulmay ra'iisul wasaarihii hore kalena hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka kulanka madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaarihii hore ayaa looga hadlay xaaladda kala guurka ee uu dalku marayo sida mar kale warkan uu ku faahfaahinayay wariyaheena Cabdicasiis Xasan Ibraahim madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo siyaasadeed la qaadanaya madax ka tirsan dowladda federaalka mucaaradka xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro madaxweyne Dani ayaa markii uu Muqdisho kulan la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiyada qaran oo ay ka wada hadleen go'aamada ay tahay in laga qaato siyaasadda uu dalka ku hogaaminayo madaxweyne Farmaajo oo si aad ah ay u suluugsan yihiin ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Geedi ayaa isna ka mid ah dadka uu la kulmay Dani oo ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda dalka isla markaana aad loo hadalhayay in loo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa dhanka kale hoyga uu ku degan yahay magaalada Muqdisho wuxuu ku qaabilay xildhibaan Fuusi Yuusuf Xaaji Aadan iyo Ridwaan Xirsi Maxamed oo labaduba hore u soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenada dalka Soomaaliya kulamada u badan kuwa lagu falqeynayo siyaasadda dalka ayaan la ogeyn waxa ka soo bixi doona iyo sida xalka uu noqon doono iyadoo iminka ay socdaan shirar kale oo u dhaxeeya madax ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano dhaca gobolka Jubbada Hoose sidoo qodobareedkan uu ku faahfaahinayay wariyaheena Maha Tawakal ciidamada dowladda
ayaa al-shabaab kala wareegay deegaana hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose. ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kala wareegay al-shabaab deegaano dhowr ah oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. deegaanada ay ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay kala wareegeen al-shabaab waxaa ka mid ah deegaanka Janaac Cabdalle oo hoos yimaada magaalada Kismaayo ku dhawaadna 60 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Jubbaland ayaa dhowr jeer deegaankan kala wareegay al-shabaab waxayna al-shabaab sidoo kale markii ugu horeysay ay kala wareegeen ay ahayd sanadkii 2016 walow ay dib uga soo baxeen. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa shalay ka ruqaansaday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxayna ku wajahnaayeen deegaano dhowr ah ee al-shabaab kaga sugan yihiin gobolkaasi. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa dhawaan sheegay in ciidamada maamulka Jubbaland ay bilaabayaan howlgal ka dhan ah al-shabaab kaas oo looga saarayo deegaanada ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Gado. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaaladda Gado. faahfaahinta ka fog waxaa ka haya qodobkan aad ula socday wariyeena Cabdicasiis Xasan Ibraahim. waxaa xalay madaxtooyada Soomaaliya kulan ku wada qaatay madaxweynaha dowladda federaalka iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyagoo ka wada hadlay arrinta gobolka Gado halka oo dowladda federaalka ay ku daabushay ciidamo ka howlgalayay magaalada Muqdisho. warar xogaal ah ayaa waxay sheegayaan inay isaga soo dhawaadeen sidii hore isla markaana loo xil saaray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inuu arrimahaasi ka shaqeeyo. arrinta Gado ayaa waxa ay ka gaareen isfaham hordhac ah iyagoo u saaray guddi min hal xubnood ah oo ka shaqeynaya qaabka farsamo ee xal lagu gaari lahaa arrinta gobolka Gado. sidoo kale waxaa maalinta biri ah la filayaa in kulan 3 geesood ah ay wada yeeshaan madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland. kulankaasi oo ah mid lagu arsanayo arrimaha laga wada hadlay. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in isla qaatay in kulamada soo socda ay ku soo biiraan madaxda ka maqan ee maamul goboleedyada dalka si shirarkaasi ay u noqdaan kuwo go'aamo wanaagsan laga gaaro isla markaana heshiisyo buuxa ay ka soo baxaan. dhegeystayaal gabiyan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warar wixii na soo gaaray oo aad kala socoteen bandhiga FM muujada 97.5 warkan lamid inta dib ugu kulmi doono nabadgelyo. laakiin waxaan iga xasuusay cidii warkeena uu saagay barnaamijyadeena ay dib ugu daalacaan karaan fadhiga internetka aynu ku leenahay ee bandhiga.net. nabadgelyo.